السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إيه ورمسيتهين وفي عنتهين وحارجينا إنا في عنتين لمانتين أنا جنا ما في عن هاي سيدو كله الحمد لله. هلا سودا وهذا فيديوغا لايكتا هلو عمامة إن شاء الله. meeshaan waa subax aroor ah markaan salaad subax soo tukadaan jikada soo galay meeshaana waxaan rabaa inaan soo sameeyo pancake oo quraac fudud aan saa ka sameysano biidnillaah. marka meeshaana waxaan kusoo shubay 3 xabo ukun ah iyo caano yar aan isku soo shiiday. kadib baan waxaan rabaa duu ilaahay idmo inaan ku daro burki wax adiga qiyaas ahaan 2 bakeeri camal ah maadaama burkan size weyn iyo size yar uu leeyahay nus kiilo iyo wuxuu leeyahay kiilo nus kiiladiisa hadda kana isticmaalayo waaye waxaa ku jirta qiyaastii 4 koob ama 3 koob iyo koob aan aad u buuxin. marka 2 koob ka soo isticmaalay waa soo shiidayaa birtana sida caadada ah dabkan soo saartay si ay iigu sii kululaato. marka sidaas oo ku soo baxay meesha yareedan dhasta yar dhac ku soo siinayaa shaqada sida adiga isaga fududeyso ee marwalba ku xiran tahay. waa kana weelkii aan rabo inaan ku sii shubto kana biyo raba inaan la sii dhigo aan hadhow iska sii biyo raaciyo. marka sidaanay ku soo baxday waxaan dhaxmarinayaa qaadada si aan u arko inuu yahay sida naasibka aheedan ka rabay inuu adag yahay inuu jilicsan yahay inuu biyo yahay samaha. marka ma jilicsano biyana ma ahan sidii aan rabo ku soo baxay exactly. marka bismillaah midka u horeeyaan soo saarnay sidaana ku soo wadayna ilaa midka u dambeeyay birtu aad u kululaanin baan saaray kii u horeeyay iga cadaaday hadda kii labaad waa kana sidaan ku soo baxay. marka hala soo dhawaado videoga meel fog hala gaarsiiyo insha Allah. comment iyo like iyo subscribe dhamaan yaa naga iloobin. dadkii hore noola joogay waxaan leeyahay waa mahadsantihiin ilaahay ha idin sharfo. dadku cusub oo nagu soo biiran soo dhawaada. dadka kalena waxaan leeyahay subscribe ka hana loo saaray biidnillaah. sidoo kale like tii aan nagala hilmaamin anaga wax weyn noo taraysaa hadaa video ka heshay iyo hadaa ka helinbo like ta noogu dadaal insha Allah. marka sidaan ku soo wadaa waxaan rabaa qaybna inaan maxal dhahaa hada la cuno qaybna aan ilmaha dugsiga aaday aan baaga ugu rido qudaar yarna fruit yarna u saaro. marka hadda baaquligan fiirinaya xoogaha waa iska soo dhamaad. marka alxamdulillah hadda waa soo nabad laabtay ilaahay ilmahan waa ii caafiyay ilaahay baa mahad iska leh. kadib hadda waa soo dhameeyay meeshaana waxaan soo qaaday strawberry iyo blueberry qal iyo liin dhanaan iyo waxaan kusoo dhaqay halkaanan kusoo shushubaya adiga xilligan hadda saacadu waa 12 iyo bar meelahaas waaye. kadib waa kana strawberry blueberry soo qaaday waa kusoo dardaraya. quraacyada waxaa waaye quraacdan ilmaha jecel yihiin maalmo markay joogaan muddo halka u kariyo badanaan fruitka ma jecla ma aqaan in ay la mid yihiin ilmaha badanaa fruitka ma jecla I don't know why. laakiin tan markii dhowrkii isbuuciba 2 mar camal u kariyo kala fog si fiican ay u cunaa waxiisana. laakiin hadaa ka badiyo waxa ka baqaydan inay nacaan. marka waxaan dhahaa 2 isbuuci 2 jeer u geli. marka kadib jikadii iska soo nadiifiyay ilmihii aan dugsiga geeyay meeshaan shaahayga soo shubtay quraan raba inaan soo akhristo wili waa subax adiga 2 saac taa wili lama gaarna u maleynaa markaan. marka waan soo quraacanayaa markaan soo quraacdo kadib vitamins-kaygaan soo qaatay meeshaan waxaan soo qaatay vitamin C-gayga. hooyo hadaa tahay mar walba waa inaad ka taxadartid vitamiinskaaga sidoo kale waa inaad hurdadaada ka taxadartid. mas'uuliyadana saaran mas'uuliyad aad u culus waaye waxaana ka soo bixi karo qof timetable haysto oo jadwalkiisa u degan yahay oo vitamiinskiisa cuntadiisa caafimaadkiisa ka fikiray. marka kadib biyahan ay weerihiin arka magnesiumkii vitamin D ku cuni rabay waa soo qaatay waa soo badiyay kaasna waxaan sugayaa intuu ii dhalaalayo magnesiumka soo qaatay. magnesiumkan markaan qaato hurdada habeenka seexda hurdo aad u degan oo fiican waay. laakiin intaadan cunin ka hor waa inaad ogaatid vitamiinskaaga. anaga Soomaali hadaan vitamiinsku iska cunaa laakiin marka hore inaad ogaatid waa vitamiinka ka maqan jirkaaga markaas aad cuni kartaa haduu ku naasibay. laakiin haduu ka maqneen inaad cuntid ma ahan ama inta iska soo gadatid inaad cuntid khalad waay. waa inaad vitamiinskaaga baartid wixii ka maqan iyo wixii kale aad ogaatid. laakiin dhibaato leedahay in inta iska soo gadatid aad cuntid. dhibaatada leedahay waxa waaye ma taqaanid inuu kugu badan yahay inuu kugu yar yahay vitamiinkan waa iska cuntee dhib weyn uu ku keeni karaa kaliya xanuun waxda keeni karaa ilaahay naga amaansado. kadib waxaa yiri intaadan meel fadhiisanin saaksa jikada u gashay ilmaha dugsiga weelasha iska dhaqay qadada wixii aan karin lahaana waa isku sii aadista. marka waxaa yiri waa inaad bal waqti me time soo qaadatid. meeshaana waxaan soo qaatay molato soap kan aad u fiican tahay
waxayna kaa caawinaysaa in ay kaa saarto wasakhda iyo jirka dhintay iyo unugyada dead skinka waxaasoo dhan. waxaan kaloo kusoo daray wax yar oo rose water ah maadaama uu fridge ku jiro yar adag yahay si uu igu soo dhalaalo. sidaas quruxda badan uu kusoo bixi lagama sheekeyn karo. maqaarka waxaa ka dareemaysaa jilicsanaan, sidoo kale wuxuu ku siinayaa dhalaal iyo maxaa la dhahaa glowing. marka qofkii rabo nambarka meeshaas uu ku qoran yahay wuu soo dalban karaa. sidoo kale waxaan rabaa inaan la wadaago in dabiici glow lagu soo kordhiyey body butterkan. uu ahaa product aan muddo tijaabinayay aniga iyo dhowr qof oo kale ayaa isticmaalay muddo ku dhow 1 bil. runtii aad ayaan ugu farxay natiijada, waxaana si gaara u dareemay in qaleelkii iyo roughness-kii maqaarka ka yaraaday, maqaarkan uu noqday mid jilicsan oo smooth ah. hadda waxaan go-aansaday inaan si rasmi ah ugu soo kordhiyo dabiici glow. waxaana ku daray waxyaabaha aan ku daray oo ka kooban yihiin waxaa kamid ah oon si gaara ugu dooray shea butter iyo mango butter marka iyo waxyaalo kaloo badan, saliido kaloo ka badan oo kala duwan. waxaan rabaa inaan la wadaago waxa aniga tijaabiyey aan kusoo qancay. marka aniga dadka waxaa ahay jirkoodu aad u qalalan yahay, marka waxaa iri maybe dad adoo kale way jiraan wayna buuxaan caawisid. marka aniga aad u caawiyey. sidoo kale meeshaan waxaa haystaa Moroccan gloveskan inaan kusoo qabaystaa rabaa. sidoo kale meesha waxaa kaloo ii yaalo bahalkan maxaa la dhahaa dry brushkan dad badan aan garanaynin muxuu faa'iido u leeyahay. dry brushka waa in maqaarka si tartiib ah ugu cadaysid. maqaar loo cadeynayo ma aragtan sidaas tartiibta ugu rugaysaa. waxay kaa caawinaysaa in meesha ay ka saarto maqaarka dhintay oo maqaarka ka dhigda mid smooth oo refresh ah. aad u fiican yahay, laguma qabaysto. dad badan oo TikTok waxa ku arkay musqush intee la galaan isku rugayo ku qabaysanay, laakiin saas laguma talagelin. kadib markaan musqush kasoo baxay waqtiga me time kasoo qaatay fadhiga babyga yar isaga ciyaaraya waxyaalihii alaabeedii wixii aan kala aruuriyay. meeshaan waxaan rabaa inaan xaaqin yar dhac kusoo siiyo, kadib meeshaan aan quraankayga xisibka kusoo aqristo intaan la gaarin waqtiga aan qadada karin lahaa oon qadada qaadi lahaa. xilliga marka hadda adiga waa iska 4 saac iyo bar meelahaas. babyga hurdada ku laabtay. meeshaanan fadhiga waxaan leeyahay iska soo xaaqdid. hadda geeskaas waan soo xaaqay, geeskan kala xaaqinka kusoo wadaa. maasha Allah wasakh badan ma lahan maadaama saaka la tirtiro la hagaajiyay, laakiin dee waa iska fadhi oo meesha waxaa waaye qofkii ugu horeeyo ku imaado maanta uu kaasoo booqanayo ku soo galayo waa fadhigaaga. marka every time fadhigaaga waa inuu hagaajisan yahay. maalinta ugu yaraan waa inaa 4 jeer fadhiga hagaajisid. meel laga maarmaayana ma aha. marka mar walba inuu fadhigaaga taagan yahay adiga xataa raaxa nafsiya dareemaysaa. marka waa kana haddadan waan soo xaaqay. wax yaroo busbus iyo qashin yar oo daaqad iyo waxaas kasoo galgala ma ogi hadda wax kaloo leemanaa, laakiin sidaasay tahana lama deenayo, waa la hagaajinayaa. marka maasha Allah. kadib waa kana qaxwadeeda iska soo qaatay iyo kitaabkay quraanka ahaa. maasha Allah. meeshaan TV-gan soo damiyo waxaa ka shidanaa xusnul manzil quraanka oo maxaa la dhahaa guriga iyo waxyaalahaas loogu talagalay. hadee maadaama aan quraan aqrinaa waa inaa iska damiso ma intaasoo dhan u shidnaa xaala sida loo shido waaye. haddadaana yara pause geliye marka aan dantayda gaaran quraankayga akhristoon jikada galaayo waa soo daminaya insha Allah. kadib ilmihiyaan keenay casir waaye hadda xilligan. waxaan rabaa inaan casho soo kariyo. mooskaana raba marka inaan la wadaago sida aniga u karsado. aad u fiican yahay. markasta in hilib la cuno ma fiicno, waxaa fiican marmar in hilib wax ka duwan la karsado. marka waxaan soo qaatay mooska ceyriinka mooska ceyriinka waxaa u maleynaa af Soomaali moos ceyriin bas inuu yahoona erey kale loo aqoonin. Kiswahiliga laakiin waxaa la dhahaa matoke. 4 geesaan kasoo jarayaa, saasaan usoo dilaacinayaa. waa arkaysiin saan yeela qolofka dhanka ma fiiqaayo, laakiin hal dhinacaan u baneynayaa. sidaasaan kusoo wadeynaa ilaa iyo midka u dambeeyo. kadib biyaan dabka kula saarayaa. biyaha markaan dabka kula saaro waxaan rabaa in muddaa inuu ku karo uu si fiican usoo karo. markuu si fiican usoo karo baa isla arkaynaa siduu kusoo baxo insha Allah. marka hadda si fiican aan usoo laabtay. fiidiyoyadeena sida quruxda badneed ay kusii socon doonaan biidnillah. waxaan rajeynayaa idinkana inaad si qurux badan ii daawatiin. waaba ii daawatiin. ilaahay khayr ha idin siiyo. ilaahay ka sokoo la-aantiin maanta meesha ma soo gaari lahayn. kan sidaasay tahay waxaan rajeynayaa anigana inaan dadaalka laba jibaaro, idinkana sidoo kale aad dadaalka laba jibaartiin oo like-ta ay igu caawisaan. sidoo kale share-ta, subscribe-ka dhammaan insha Allah. marka hadda mooski waa kana waa soo dhameeyay. meeshaan iska soo tirtirayaa. sidaan uu kusoo bixi mooski. biyaan kusoo shubay, cusbo yaraan ku daraa, dabkaan saara waa isla soo daboolaya. kadib meeshaan basal yaanyo soo saartay way ii soo kartay.
caraf waxyaalaha heli karo dhan asoo kusoo daraya mooskii waa kaas baaquliga ku jiro sidaasuu kusoo baxay. wuu aada u iga karay laakiin dhib ma lahan inkastoo la rabin inuu zaaidkaas u karo laakiin khalad dhaca waay maxaa la sameyn karaa. markaa karinaysid waa inuu zaaidna u karin sida barandhada oo kale. barandhada inay markaa karsanaysa bajaqdana lama rabo inay adeeg ahaatan lama rabo somaha sidaasoo kale waa inuu ahaado. marka hadda saan markay diyaar ku tahay waa kana mooskiya soo qaadanayna bitartiib maadaama uu aada u jilicsan yahay hal aan ugu soo dareynaa waxaan leeyahay yuu kaa jajabin bitartiib. marka aadkaan inuu u karo lama rabo laakiin dhib ma laha. anaga caawa cashadayna intaanayba ahayd bagsheekeya canjeere iyo bariis iyo baasti iyo waa u goona caawa iyo rooti iyo waxaas waxaan dhana cashadayna saanaba ka dhiganaynaabo. qaybtaana u guureynaa saliidan kusoo kariyeen waxaa waa yaanyada saliid oo maxaa la saliid saytuun saliid cadii xataa irida laga saari rabaa insha allah. kadib waa kana hadda sidaanu kusoo baxa quruxda badan maasha allah tabaarakallah. daaniyaraan korka kasoo saaraya basbaasa intaa u timid sidaan waxaan ku dhahay feeraha iska saaray hadaa rabtid mala waxaa u karsanee ceesh waxaa rabtid waa la adimaya anigoo videoga cod ka saaraya. sidaanu kusoo baxay lagama sheekeyn karo. aniga marmaraha waxaan ku daraa bocor iyo bataati iyo maxog laakiin maanta waxaan kariyey mooska keligiisaan kariyey. marka waa kana cashadayna sidaanay ahayd. meeshaasna waxaa ku jira juice caananaas ah fruitkana halkaanaan kusoo diyaarsanay. cashadayna caawa intaanayba ahaydba maasha allah casho healthy oo kaal iska arag ah. cabitaanka xataa sonkor malaha malabaa lagu daray. marka maasha allah tabaarakallah ilaahay hanoo barakeeyo intaa haysan ilaahay ha siiyo. fii amaanillah wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bye isku soo naaban.